Assalaamu calaykum kusoo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Qodobada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah guulihii ay gaareen kooxaha Arsenal iyo Manchester United. Kooxda Arsenal ayaa garoonkeeda Emirates Stadium waxay ku garaacday kooxda Crystal Palace kulan ka tirsan horyaalka English Premier League. Kooxda Mikel Arteta ayaa ka go'aneyd sidii ay guul uga gaari lahaayeen kulanka ay la ciyaareen kooxda Crystal Palace. Tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta oo dhawaan la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in kulamada ugu dambeeya ay ciyaarayaan kooxdiisa uu la mid yahay kulan final ah. Arsenal ayaa Crystal Palace qaybtii hore ugu dirtay 2-0. Markii dib loo soo laabtay qaybtii labaad ayaa Arsenal waxa uu dhaliyay goolka saddexaad xiddiga Granit Xhaka waxaana afreeyay kooxda waxaana goolka afraad u dhaliyay xiddiga Bukayo Saka halka kooxda Arsenal laga dhaliyay goolka calanka ee Crystal Palace ay dhalisay. Tababaraha Mikel Arteta ayaa waxa uu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay guushii ay ka gaareen kooxda Crystal Palace waxaana uu sheegay in kulamada kale oo harsan kooxdiisa ciyaartoydiisa laga doonayo sidii ay bandhig fiican oo kan oo kale ula imaan lahaayeen. Dhanka kale Manchester United ayaa waxay guul ka gaartay kooxda Fulham. Kooxda Manchester United ayaa guul soo laabasho leh waxay ka gaartay kooxda Fulham. Fulham ayaa ku hormartay goolka koowaad waxaana u dhaliyay xiddiga lagu magacaabo Mitrovic kaasi oo hoggaanka u dhiibay kooxdiisa Fulham. Manchester United ayaa goolka bareejada waxa u dhaliyay xiddiga Bruno kaasi oo ahaa gool penalty ah. Manchester United ayaa u dhaliyay goolka labaad xiddiga lagu magacaabo Marcelo Sabitzer halka goolka saddexaad u dhaliyay xiddiga Bruno Fernandes. Tababaraha kooxda Manchester United Erik ten Hag ayaa waxa uu sheegay in ciyaartoydiisa laga doonayo sidii ay kooxda guulo muhiim ay ugu hogaamin lahayn iyadoo Manchester United ay u tartamayso sidii ay u gali lahayd kaalinta saddexaad ee liiska kala sareynta horyaalka English Premier League. Manchester United ayaa haddii ay guul dareysato kulamada ay ciyaari doonta kooxda Manchester United ayaa waxay khatar ay geli doonta usoo bixidooda tartanka Champions League. Kooxo badan oo ka mid ah Liverpool, Newcastle iyo kooxo kale ayaa u tartamaya sidii sanadkan ay ugu soo bixi lahaayeen tartanka Champions League. Fulham ayaa guul daro xanuun badan kala kulantay Manchester United waxaana tababaraha kooxda Fulham uu sheegay in kooxdiisa ay u dagaalami doonto sidii meel fiican ay kaga dhameysan lahayd horyaalka English Premier League. Tartanka horyaalka English Premier League ayaa waxa uu noqday mid xiisihiisa aad u sareeyo iyadoo lagu guda jiro kulamadii ugu dambeeyay ee horyaalka English Premier League. Horyaalka English Premier League ayaa gabi ahaantiisa waxaa haddana ka harsan ilaa 10 kulan. Kooxaha qaar waxay u dagaalamayaan sidii ay heerka labaad ay uga badbaadi lahaayeen, kooxaha qaarna waxay u dagaalamayaan sidii ay uga soo bixi lahaayeen tartanka Champions League iyadoo Arsenal ay u dagaalamayso sidii ay ugu guuleysan lahayd horyaalka English Premier League. Guud ahaan waa naga intaa barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Fadlan haddaad ku cusub tahay like, share, subscribe, share gareysi barnaamijkan asxaab badan u gaaro mahadsanideen.